إيران oo goordhow sheegtay inay dhulka soo dhigtay mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan Mareykanka ee F-35 Mareykanka oo faahfaahin ka bixiyay sida ay diyaaradoodu wax u soo gaareen ayay ka hadleen dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay Iran oo sidoo kale korontada ka jartay gobollo badan oo ka tirsan Israa'iil markii ay duqeymo ku garaacday waxay soo kale Iran gubtay goobta shidaalka lagu kaydiyo iyo sifaynta batroolka magaalada Haifa iyadoo Israa'iilna ay sheegtay inay weerar kala qaaday xaaladda guud ee gobolka halka ay marayso iyo Mareykanka oo sheegay inuu dhaawac culus qabo aayatullaahiga cusub ee Iran madaxweynaha Masar oo isaguna socdaal aan hore loo sii sheegin kaga degay magaalada Doha ee dalka Qatar muxuu samayn doonaa madaxweyne Sisi siduuse u taageeri doonaa dowladaha khaliijka oo xaaladdu ay aad ugu xun tahay haddaba wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirnana wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa barnaamijka ayaynu gudagali doonaa inagoo idinku haynaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin diyaarado la soo riday xaalka oo kacsan weerar la isdhaafsaday iyo xarumo shidaal oo mar kale la iska gubay balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Mareykanka ayaa sheegay aayatullaahiga cusub ee dalka Iran inuu qabo dhaawac culus una ku dhaawacmay bilowgii dagaalka weeraradii ugu horeeyay haddaba markaan idin soo warkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay Mujtaba Khamenei inuu dhaawac culus qabo weerarada Israa'iil ay ku qaaday Iran una ku dhaawacmay sida ay yiraahdeen haddaba gabadhan oo ah agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka dalka Mareykanka waxaa lagu magacaabaa Tulsi Gabbard ayaa sheegtay aayatullaahiga Iran Mujtaba Khamenei inuu qabo dhaawac markaa ballaaran oo culus wuxuuna ku dhaawacmay ayay tiri weerarkii Israa'iil ay bilowgii dagaalka ku qaaday Iran haddaba hadalkan ayay waxay ka jeedisay xilli ay markaa u warramaysay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Mareykanka guddidiisa u qaabilsan dhinaca sirdoonka marka ninkan waxay leedahay xogta aan hayno bilowgii dagaalka markii aabihii iyo la dilayay iyo meelahaas ayuu ku dhaawacmay dhaawac culus oo qaba tan iyo markii hadda la doortayna ma soo muuqanin oo macnaha laba mar kaliya ayuu hadlay labada marna warbixino qoraal ah ayuu ku soo hadlay marka waxayna leedahay naagtanu ninka uu ka adag yahay aabihiisa ay qarsan noqonaya ay tulleegii weynaa ayaa ay qarsan noqonaya kan waaba midka ugu daran ee leedahay marka sidaas ay warbixinta ku siinaysay guddida weli waxaa noo soo socda dagaalkii iyo weeraradii iyo diyaarad qatar oo Mareykanka laga soo riday maanta balse laakiin markan waxaan galaynaa madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al-Sisi ayaa socdaal aan hore loo sii sheegin wuxuu ku tagay isaga iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada Doha ee dalka Qatar iyadoo madaafiicdu dhacayaan oo cabsi jirto oo diyaaradihii kala xaniban yihiin ayuu Sisi diyaarad inta qaatay wuxuu ka degay magaalada Doha ka degay wuxuuna sheegay maxay iga baahantiin khaliijow maxay iga baahantiin maxaa samaynaa sidee yeelnaa Iran ma ku duulnaa see ugu duulnaa Iran ayadaa bateeda haysataa Israa'iil iyo Mareykan maan la safarnaa maxaa samaynaa gantaalihii wax lagu celinayay hadday wax celin waaye maxaa la qabanaya marka taageero inuu muujiyo niyadda u tajiyo nimankii khaliijiyiinta ahaa ayuu ninkii Sisi ahaa halkaa u tagaa lagu leeyahay haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray amiirka Qatar ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Masar oo ku sugan magaalada Doha ee dalka Qatar haddaba amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa maanta Khamiisa wuxuu soo dhaweeyay madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al-Sisi kaasoo booqasho ku tagay caasimadda Doha booqashadan ayaa waxaa la sheegay inay xiriir la leedahay in markaa xaaladaha ka jira gobolka ay ka wada hadlaan mas'uuliyiinta haddaba amiirka Qatar ayaa sheegay in markaa madaxweynaha ay ka wada hadleen Sisi kulankooda
arrintan sidii wax looga qaban karo iyo xaaladda gobolka guud ahaan iyo sida la isaga kaashan karo sidii arrintan loo damin lahaa oo xiisadan taagan loogu bedeli lahaa wada hadal. haddaba waxaa goobjoog ka ahaa kulankaasi ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, ayadoo dhanka kalena ay joogeen wufuud ay ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo isaguna kulankaasi goobjoog ka ahaa. marka xaalkaasu isaguna halkaas ayuu joogaa. wararkaas ayaa iyaduna ka soo kordhay sida hadda la leeyahay. waxaan u gudbaynaa marka weeraradii dhacay saacadihii la soo dhaafay iyo sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin dulmarayaa. haddaba markan waxaan u gudbaynaa warbixinta ku saabsan Iiraan afhayeenkeeda ciidanka warkii uu soo saaray. afhayeenka ciidanka Dul Faqari ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay markaa sameeyeen howlgalkoodii 63aad ee ay ugu magac dareen Al-Wa'd As-Sadiq 4 iyagoo u isticmaalay gantaalaha iyo sawaariikhda goobaha muhiimka ah saldhigyo kala duwan oo ku yaala dalalka Imaaraadka iyo Qatar iyo Kuwait iyo Bahrain intaba ay duqeymo culus ka geysteen saldhigyada Mareykanka oo halka ku leeyahay. waxaa la sheegay dufcadda 63aad ee howlgalka Al-Wa'd As-Sadiq in markaa ay isticmaaleen gantaalaha nooca loo yaqaano Qadar oo ay sheegeen in ay dhammaantood ku dhaceen goobihii muhiimka ahaa ee loogu talagalay oo ay weerarka ka geysteen. marka waxa uu yiri 63 la maraya xisaabta mawjadaha xaalku sidoo yahay. dhanka kale warar kale oo iyaduna cusub oo soo baxay dagaalka iyo weeraradii dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaan u gudbaynaa. haddaba wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen in garaacis xoog leh ay ka timid oo weerar ah oo la beegsaday deegaanka la yiraahdo Haifa oo ku yaala bartamaha Israa'iil. 3 weerar oo kala duwan ayaa lagu qaaday dhinaca Haifa iyo waqooyiga Israa'iil iyo Tel Aviv al-Kubra saacadihii la soo dhaafay. dhammaan gantaalaha Iiraan ayaa halkaa lagu soo weeraray. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay in korontada ay ka go'day meelo badan oo ka mid ah deegaano kala duwan oo markaa ay ka mid tahay Haifa kadib weerarka gantaalaha Iiraan ee halkaa lagu soo qaaday. haddaba waxaa la sheegayaa malaayiin qof oo Yuhuud ah inay ku jiraan godadka dhulka hoostiisa oo xaaladoodu ay adag tahay oo aanay waqti haynin inay ku soo baxaan. kanaalka 12 la leeyahay Israa'iiliyiintu ay leeyihiin waxa uu sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlayo xilligan bartamaha Israa'iil iyadoo gantaalaha Iiraan ay halkaa ku daadanayaan. jaridda la yiraahdo Yadacood Axranood ee ka soo baxda Israa'iil ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in gantaalaha ay ku dhacayaan magaalada Haifa iyo goobo kale oo ku dhow sida ay iyagu sheeganayaan. marka warku waa sidii hore. Iiraan waxay tiri gantaalaheenu wax celi kara male. marba marka ka dambaysa awoodda difaaca gantaalaha Israa'iil way sii daciifaysaa iyo kuwa Mareykanka. hadda marka maxaan u jeednaa korontadii ka gubaysaa waxay gubaysaa maalihii shidaalka lagu kaydinayay wixii oo dhan ay gubaysaa. gantaalaheedu markay soo baxaan hadda meeshay rabaan ay ku dhacayaan Iiraan. nimankii Yuhuudda ahaa waa yaaban yihiin godadka ka wada buuxan dhulka hoostiisa. intuu qaadaa godku meequu qaadaa meeqaasi badbaadi karta. marka hadda waxaa lagu leeyahay intaasoo khasaaraha socda gantaalihii soo dhacay koronto dhan male bartamaha iyo koonfurta Israa'iil oo dhan korontadii adanta meelihii korontada laga duqeeyay mugdiga ku jiraan rafaadka iyo dhibaatada ay ku jiraan waa yaabaysaa. qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa. qodobka kale ee muhiimka ah warka hadda soo dhacay wuxuu yahay waxaa la leeyahay diyaarad khatar ah oo nooca dagaalka Mareykanka noocyada uu ku dhaartaa oo la yiraahdo F-35 waxay ka mid tahay diyaaradaha dagaalka ugu halista badan. waa diyaaradii Turkiga uu lahaa naga iibiya laga diiday.
wadamo khaas oo iyagu ay siiyaan bas jira oo ka iibiyaan diyaaradda marka F-35 ka ayaa waxaa la sheegayaa in markaa gantaal lala helay iiraaniyiintu dhankooda waxay leeyihiin diyaaradda waa ridnay maraykankuna wuxuu leeyahay ayadoo gees u socota diyaaradda oo dhaawac qabta ayay soo caga dhigatay aeroboor ku yaala bariga dhexe maxaa la xagee taalaa diyaaradda aeroboorkee ku degatay ma Israa'iil ku degtay ma Qatar ay ku degtay ma Kuwait ay ku degtay ma xagee yaala ma jirto waxay ku leeyihiin xaaladda mustaqir waay ninkii duuliyaha ahaa ee waday diyaaradda xaaladiisu way degan tahay diyaaraddiina aeroboor ku yaala bariga dhexe ku degtay taasaa marka shaki badan keentaysa mugta iiraaniyiintu laakiin waxay yidhahdeen diyaaradda iyadoo Iiraan hawadeeda soo gashay ayaanu gataalka la helnay marka warkaasuna wuxuu imanayaa hadda waay mar dhow haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay leedahay Al Jazeera in diyaarad nooceedu yahay F-35 oo Mareykanka uu leeyahay ay si degdeg ah ugu degtay kadib markii ay weerar kala soo kulantay dhanka Iiraan shabakadda CNN ee telefishinka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in diyaaradda F-35 ay degdeg ugu degtay saldhig Mareykan oo ku yaala gobolka bariga dhexe iyadoo la sheegay in weerar uu kaga yimid dhanka Iiraan afayeenka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa ka hadlay arrintan isla hadeer waxa uu sheegay isagoo la hadlayay CNN-ka in diyaaradda F-35 ay hawlo shaqo ay ka fulinaysay hawada sare ee Iiraan markaas oo ay la kulantay weerar lagu soo qaaday waxaana hadda uu sheegay inay diyaaraddu degdeg ku degtay oo xaaladeedu duuliyihii diyaaraddana xaaladiisu ay degan tahay mujeda marka halkaasuu maraa marka iiraaniyiintu laakiin wakaaladda wararka Tasniim waxay leedahay diyaaradda waa la soo riday meel ku dhacday marka ma naqaanay leeyin waa carartay ayaguna waxay leeyihiin garoon ku yaala bariga dhexe saldhig ku yaala bariga dhexe ku degtay bariga dhexe marka xagee waay marka qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa war cusub oo isna hadda ka soo baxay Masjidul Aqsa barito salaada ciid laguma dukan doonaan takbiir lagama maqli doono